بنا وفي كفنا شعلة من علوم توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. sida walaalkeena uu noo sheegay mawduuca maanta aan bilaabayna haddii ilaahay yiraahdo qaybta barnaamijkii hore aanu soo wadno hadihi sabiili ahaa mawduuciisa saddexaad. mawduucii hore aladillatu almuttafaq calayha almuxtaju biha sharcan. mawduuciisa labada sunna walbidca aan ugu soo hadalnay. mawduucan alitifaaq waliftiraaq yaan ugu hadli doona haddii ilahay yiraahdo, anagoo ugu gol jeegno markaa inaan uga hadalno khilaafaadka muslimiinta dhex yaalla, ama caqadiyan ha noqdo ama طaa'ifiyan ha noqdo, iyo sida xaqa uu yahay iyo sida lagu garan karo ayaan doonaynaa inaan mawduucan aan si aad ugu hadalno haddii ilaahay u yidhaahdo. saas ay tahay waxaan doonaynaa inaan haddana u samayno hordhac wax la yidhaahdo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay kaana annaasu ummatan waaxida fabacatha allahu الnabiyiina mubashiriina wamunhiriin. ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaa suuratu lbaqara ku jirta wuxuu leeyahay dadka waxay ahaayeen umma waaxida oo aan khilaaf ka dhaxaynin, dacwadoodana ay mid tahay, suluugoodana isu mid yahay, noloshooda iyo qaybteedana ay mid tahay. waa laga bilaabo nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo, maadaama asiga uu yahay abulbashar, ilaahay wuxuu u soo waxyooday duriyadiisa iyo dadka asiga ka dambeeya wixii diin ahaan lagu dhaqmi lahaa, ilaahayna ay ku aqoonsan lahaayeen markii intii ambiye laga gaaro. marka waxay ahayd ummaddaas waxay iska soo dhexli jireen nebiyullaahi aadam laga soo bilaabo ilaa nebiyullaahi nuux laga soo gaaro, wax khilaaf ee ummadda kama aynaysan dhexayn, ummatan waaxida bay ahayd. markaa sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahay dadkii way iskhilaafeen, fabacatha allahu الnabiyiina mubashiriina wamunhiriin. sidaas baa waxay keentay markaan ummaddeeda isku khilaafeen oo tawxiidkii qaarna ay qaateen qaarna ay diideen, qaarna makaarim alakhlaaq ay qaateen qaarna ay diideen. yaa ilaahay subxaanahu watacaala xikmadiisa waxay keentay in ambiye la soo saaro, rusul in la soo diro, loola jeeda markaa in ummaddaas xaqa loo caddeeyo. ninkii diintaas iyo xaqa qaatana uu ilaahay subxaanahu watacaala uu u barakeeyo oo janno ay ku mutaystaan, ninkii diidana naar uu ku galo. sidaa daraaddeed baa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay sida uu alxaakim fii mustadraki uu ku wariyey, ibnu jariir fii tafsiirihi kaana bayna nuuxin wa aadama 10 quruun kulluhum calaa shariicati min alxaqi faاkhtalafuu fabacatha allahu الnabiyiina mubashiriina wamunhiriin. wuxuu leeyahay nebiyullaahi nuux iyo aadam waxaa u dhexeeyey 10 qarniyaa u dhexeey, macnaa 1,000 oo sano camal. dadkaas dhammaantoodna kaanuu calaa shariicati min alxaqi faاkhtalafuu, marka way iskhilaafeen shariicadii. taas baa waxay dhalisay fabacatha allahu الnabiyiina mubashiriina wamunhiriin. ilaahay baa ambiyada soo saaray ayagoo ugu bishaaraynaa ninkii xaqaas qaatana janno, ninkii diidana naar ugu digayo. yaa ilaahay yaa uu soo saaray ambiyada laleeyahay. sidaa daraaddeed hadalkaas waa ibnu cabbaas baa yiriyey. asiga hadalkaas oo kalena mid laga yidhaahda ma aha min jihati alcaqli lagama yidhaahdee, waxa weeyaan wuxuu nabiga calayhi salaatu salaam ka maqlay baa yuu dhici karaa, liannahu ibnu cabbaas ma ogaan karo nuux iyo aadam waxa u dhexeeya ma ogaan karo. waxa uun ogaan kara nebi loo soo waxyooday calayhi salaatu salaam, waana nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka ummaddii waxay ahayd kulligeed calaa millati abina aadam bay ku sugnaayeen, ay diinta ay ku haysteen. markii ay gaareen muddo min azaman ay soo martay xataa cabadu lawthaana, markaasaa waxay dhacday inay aaliha ilaahay duuntiisa ilaahnimo u caabudeen. taasaa xikmada ilahay waxay keentay dadkaas inayna saas ku dhimanin, xaqana in loo caddeeyo. xaqana waxaa loogu cadday karaa ambiye in loo soo saaray iyo rusul, sidaasaa loo soo diray. marka alaslu waxa weeyaan alitifaaq. war u fiirso, nebiyullaahi aadam markii ilaahay ardada uu ku soo saaray, carruurtaas uu siiyey, carruurtiisii asiga, inkastoo haabiil iyo qaabiil ay wax ka dhex dhaceen, khilaafkaas wuxuu ahay farci ah, laakiin caqadiyan iyo diin ahaan khilaaf kama dhex dhicin. sidaa daraaddeed ummadda ay u toosneed. marka waxaan doonayaa in aad ogaatid kitaabka qur'aanka kariimka markaad akhrisid inta ambiyada iyo umamtooda ay isla mareen ee dhibaato ay dhex martay, qoladaana xaq ay u gurmanayeen, nimankaana xaqa iska difaaciyeen. markaad akhrisid qisada ku soo aroortay qur'aanka wax la koobi kara ma ah. marka dadkana laba qayb unbay u kala baxaan. dad badana waxay aaminsan yihiin markii qisadaas iyo waxa umamtaas dhex maray looga sheekeey inay iska tahay arrin iska maantoolays ahoo macnaha qofkii inuu iska dhegaysto wixii dhici jiray un taariikha oo la ogaada inay tahay. dad baa saas u fahmay. dadka kale ilaahay subxaanahu watacaala wax fahamsiiyeni
waxay og yihiin qisada oo qur'aanka kariimka lagu sheego bayna muusa wa fircawn wax dhexmaray ama nuux wa qowmuhu wax dhexmaray huud iyo qowmkiisa wax dhexmaray qisada markay qur'aanka dhageystaan laba natiijo ilaahay subxaanahu watacaala noogu sheegay in lagala baxay ay habboonta marka ugu horreysa waxay tahay in ay ummaddaas ayada ah waxa ku dhacay maadaama qisadii nebiga marka la soo saaray ummaddiisa waxay labadooda dhexmaray markii noola sheegay waxay ku dambeeyeen baa noola sheegay waxaa inoo caddaatay markaan in ambiyada xaqa ay ku dambayn jirtay qoladaasna ay halaag ku dambayn jireen marka waxaa la rabaa qof kastoo muslim ee kitaabkii ilaahay wax ka akhrisanaya inuu mar kasta dhegaysto qisadaas markuu dhegaysto in uu iskula hadlo yidhaahdo waa inaan toosnaado haddii aan xumaado waxaa ii dambaynaysa cirib xumada ummaddaas u dambaysa marka caaqibatuhaa waxa weeyaan waa khasaara sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala markii uu yidhi reer bani israa'iil khaas ahaan yuhuudda khaybar markii reer bani nadiiran dhehe markii nebi moxamed alayhi salatu salaam ilaahay ku salliday ee madiine agteeda laga heray ee markaa la yidhi wixii nin kastaba ritigiisa u qaado unbuu qaadan karaa xoolihii kale waxay bilaabeen in gacnahooda ku burburiyaan marka ilaahay wuxuu yidhi faataahum allahu min xayثu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim الrucb yukharibuuna buyuutahum biaydiihim faاctabiruu ya uli labsaar bal u fiirso waxaa la yidhi qoladaas ilaahay wuxuu ku manaystay nebi moxamed inuu argagax qalbigooda ku riday ayaga ay bilaabeen intaanan ayaga guryahooda loogu soo gelin inay ayaga mataacadoodi gurigooda gacnahooda ay ku baabi'iyaan ulajeedada waxa weeyaan faاctabiruu ya uli labsaar dad yahow caqliga u saaxiibka u middaas ku cibro qaata ulajeedada waxa weeyaan اعتبروا حتى لا يحل بكم ما حل بهؤلاء الأمم حين انحرفوا من كتاب الله وسنة رسولهم markay ka leexdeen waxay ku dhacay sayna idinkugu dhicin adinkana ku cibro qaato oo haddaad tihiin ummatu muxamed waxaad guul heli kartaan oo toosnaad heli kartaan intaad kitaabkaas ku toosan tihiin haddii aad ka leexataan waxaa idinku dhacaya yuhuudda waxa ku dhacay maalinta tan ku dhacaya idinku dhacay sidaas baa laleeyahay marka qisada ugu horeysa waxa weeyaan inaan annaga kawaana qaadano haddii annaga aan ku tashanno inaan xaqa la dagaalanno baadilka aan gacan siino diinta ilaahay aan fahmayna aan garab raacno waxaa inoo dambaynaya umamtii hore oo ambiyadoodii ee rusushii dagaal kula jirtay wixii uu dambayn jiray unba annagana noo dambaynaya marka taas waxa weeyaan waa dersi faاctabiruu ya uli labsaar dadka caqliga u saaxiibu arrintaas ku cibro qaata yahuudi adinka ilaahay kagama sokaysiin oo nasab ilaahay nin ugu dhexeeya ma jiraan laakiin xaqaas un baa laysku daryeelaya haddii adinkaad xaqaas ku toosnaataan waxa weeyaan ilaahay guul buu idin siinayaa waadna toosnaanaysin wax idinka hor imaanayaana ma laha haddii aad ka leexataanne maanta yahuud waxaad arkaysaan oo ku dhacay baa idinku dhacay sidaas baa laleeyahay marka qisadu marka loo jeedo ulajeedada ugu horreysa waxay tahay in lagu fahamsiiyo xaqa ninkii ka leexdo sidaas baa u dambaynaysa in yidhaha qisada ulajeedada marka ugu horreysa taas weeyaan midda kale oo loola jeeda qisasta qur'aanka lagu sheego iyo siraacaadka bayna arusuli wa aqwaamihim dhex marto qofkii muslimkaa waxaa laga rabaa inuu markuu dhegaysto ambiyada wixii ku dhici jiray wixii ay dacwada rafaadku soo mareen inta ay dhibaatooyin lasoo gudboonaatay markay arkaan waxaa laga rabaa inaad tidhahdo maadaama rusushaas oo adharulkhalqi ah ayagoo dacwadoodu fulina intaasoo dhibaato ay ku dhacday anigoo muslimina waxaan diyaar u noqonayaa markaan xaqa kan inan u gargaaro ay noqoto in intaas inta ambiyada ku dhacday iyo rususha oo aniga iga qiimo badan oo ilaahay uu yacni raalli ka noqday ay ku dhacday anigana dacwadaan sababteeda waa igula dhacaysaa inaad tidhaahdo aadan dhihin maanta islaamkii ka fogow yaanan calaamaad lagaa garanin sayna caalamka lagu dhihin irhaabi baa tahay diintii baa ninkan uu sheeganaya masaalixdaadii baa kaa baabi'ayso marka dadka diinta wato iyo maxaan ku idhaha xaqa dadka macnaha u gargaaraya yaan laguga arkin si aanan warbixin lagaaga fulin ha isku dhihin oo wixii ilaahay kugu qadarayna waa kugu imaanayaan hadhow marka dambana qiyaamo markii la gaarane ninkii xaqa uu gargaaraya ilaahay baa si fiican u abaalmarinayo kuluu washrabuu hanii'an bima aslaftum fi alayaami alkhaaliya dad baa looga abaalmarinaya marka naftaada inaad bixisid diintaadana aad ku daaficdid waxa weeyaan wax qiimo weyn ay leedahay nafta ma laha haddii xaq in lagu bixiyo ay noqoto sidaa daraaddeed al rabaa qofka muslimka ahay inuu yidhaahdo war ambiyadii ilaahay iyo rusushii sidaas ma ku dhaceen ayagoo toosan uu ilaahay raalli ka yahay anigana waxaan ogaanayaa intaas in ka badan inay igu dhici doonto waa inaan u sabraa saas inay yidhahdaana la doonaya walidalika bal u fiirso nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam yaa ilaahay wuxuu ku yidhi walaqad kudibat rusulu min qablika fasabaruu calaa ma kudibuu wa uuduu xataa ataahum nasruna
bal u fiirso dadkaa waxaa ilaahay uu leeyahay war nebi maxamedow nebi la beeni adigu uma horraysid baa lihi waata nebi qul maa kuntu bidcan min arusuli wamaa adri maa yufcalu bi walaa bikum uu nebiga ku dhalaa yidhi marka waxaa ilaahay uu leeyahay nin adiga la beeni rasuul la beeni adiga uguma horraysid laakiin rusushii kaa horraysa caadadeeda ay leedahay waxay ahayd fasabaruu calaa maa kudibuu وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين sidaas la waxaa leeyahay ambiyadii hore waa la beeni jiray waa la dagaalami jiray ayagana caado iyo da'bigooda waxay u ahaa inay sabraan beeninta la beeni inay ku sabraan oo dacwadoodii ay meel mariyaan in haddana la dhibo وأوذوا in la dhibo xataa ataahum nasruna nasrigaas ilaahay waxa weeyaan laba qayb unbuu noqonayaayo in ummadaas ka soo horjeeda ilahay qalbigooda iimaanku ku rido ay hoggaansamaan sida ilahay uu yihi casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda ilahay inuu soo hanuuniyo inay noqoto in ummaddii markii ay hanuunka diidda in la halaago marka ambiyada kaa horraysa ama rusushii adig kaa horraysa caadadooda ilaahay subxaanahu watacaala macnaha kula dhaqmo ummaddeeda waxay ahayd in markii la dhibana ay ku sabraan markii macnaha dagaal lagu qaadana ay ku sabraan taasna way dhacaysaa macnaha adiga waxa adiga ayuu kugu dhacayna way kugu dhacayaan walidaalika ilahi wuxuu leeyahy wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuthabitu bihi fu'aadak bal u fiirso waxaan nebi maxamedow aan kuu qisaynayna ambiyadii iyo rusushii kaa horraysa oo dhan qisadooda aan kugu sheegayna waxaan kugu sheegaynaa maa nuthabitu bihi fu'aadak wixii qalbigaada aan ku adkaynin waxaa la yidhahdaa almusiibatu idaa camad haanad haddii la yidhahdo qof fulaan waxaasaa ku dhacay dadka intaasaa ku dhacay intaa ku dhacay hadii la yidhahdo kulli waxay dadkao dhan isleeyihiin ficlan arrintaas waxa weeyaan intaaba hadday ku dhacday in adig kugu dhacdana dhibaato ma aha bay leeyihin laakiin haddii la yidhahdo musiibada kaligaa bay kugu dhacday way cuuslaanaysaa sidaa daraaddeed baa nebi maxamed waxaa la yidhi waxa weeyaan waxaad ogaataa qisadan waxaan kugu sheegaynaa ambiyadii rusushii iyo qowmkooda dhex mareen maa nuthabitu bihi fu'aadaka wajaa'aka fi hadihi alxaq wa mawcidat wa dikraa lilmu'miniin ayb marka sidaa daraaddeed qisada ilaahay uu nooga sheegaya ambiyada iyo aqwaamtooda dhex martay iyo dadkii qowmiyaalkooda ulajeedada waxa weeyaan in dadkii xumaay waxay mareenna aadan marin in haddana aad markaad aragtid xaqa in loo dhintay waktina lagu bixiyana adigana aad iska dharjisiisid inaad xaqaas u dhimatid aadna difaacdid inaad yani u istaagnaatid taasaa lagaa raba marka aan doonayna intaanan mawduuca aanan dhex gelin intaa waxa weeyaan in asal ummadda itifaaq ay ahayd in ilaahay subxaanahu watacaala khilaafaadkii oo ambiyadii iyo rusushii min jiha iyo dadkii aqwaamtii kasoo horjeedtay min jiha wax dhex mareen iyo sababta ay u dhex marteen aan horay usoo sheegnay yaan waxaan doonaynaa inaan waxyar ka ogaana maanta umamta saabiqada way badan taha naga horraysay umamta anaga naga horraysay waa badanta min nabiyllaahi aadam laga soo bilaabo nuux lasoo maro huud lasoo maro idriis lasoo maro saalix way badan yihin laakiin waxaan doonaynaa inaan hadalkiina u khasisno alyahuud waannasaara labadaas yaan rabnaa in hordhac ugu dhigno laba shay sababteeda baan ugu dhigaynaayo mar waxa weeyaan waa ahlu kitaabka annaga naga horrey oo aan noola dhexaynin weeyaan bal u fiirsa nebiyullaahi muusa markii lasoo diray ambiyo badan baa u dhexaysa asiga iyo ciise laakiin ambiyadaas ayaga diin cusub lama imaan jirin tawraadkii nebiyullaahi muusa lagu soo dejiyey iyay tajdiid iyo ku camalfalin iyay loo soo saari jiray nebi ciise markuu yimid tawraadkii oo la adkeeyo iyo injiil buu ilaahay subxaanahu watacaala ku soo dejiyey marka sidaa daraaddeed baa waxa weeyaan reer bani israa'iil markii la yidhahdo ama ahlulkitaab haddii la yidhaahdo waxaa lagala jeedaa labadaas daa'ifo oo yahuud iyo nasaara ah marka maadaama xadaaradoodu ay la xiriirta xadaaradeenna wax badan baa dhici karta inay diinteennii ay soo dhex galaan oo nebi maxamedna nooga sheekeeyey wax badan oo khaladaad ay ku dhaceenna lagu saxay wax badan ay ku toosan yihiinna diinteenna noogula sheegay marka taa waxa weeyaan waxay mudan tahay in xadiis gooni a looga hadlo midda labaad casriga hadda aan joogno dad badan baa waxay aaminsan yihiin yahuud iyo nasaara waa dad ahlu diin ah muslimiintana waa dad ahlu diin muslimiinta qaar ka mid ah saas aaminsan oo marka waxaad maqlaysaa ahlul adyaani halaata in la leeyahay dadkii saddexdii diimood in la leeyahay yaad maqlaysaa oo dad baa waxay u haystaan in ninkii maanta yahuud qaato ama kiristaan oo nasaaro qaato ee uu ku dhaqmo inuu janno ku tegi karo dad badan baa saas u haysto oo maanta inuu islaamkii ka baxo oo kiristaankii ou galo ay la tahay in diin kale oo intuu diin ka baxay diin kale u galay taas baa waxaan rabnaa in yar aan ka sheegno inaysan jirin wax diin la yidhaahdo maanta la joogo
bal bacda bicثati الnabiy sal اllau alيه wasalam nebiga markii lasoo saaray kadib diin inayna jirin ee diintan islaamka mooye wixii kalena la nasakhay ayna ahayn mas'alada ay tahay mas'alatu batil wa xaq inay tahay keli a yaan rabnaa inaan dadka u sheegno saan loogu kadsoomin aanan loo fahmin inay saddex diin ay jirto saanan loo fahmin ayb marka waxaan leenahay markii aan rabnaa inaan ka hadalno yahuud iyo nasaara waxaan uga hadlaynaa laba jiha midkeed marka ugu horrayso waxaan rabnaa inaan dadka u caddayno inaysan jirin wax la yidhaha maanta diin yahuud iyo diin kiristaan inaysan jirin ee ay tahay iddicaa wax la sheegta keli ay tahay waxaan kugu leeyahay arrintaas asbaab badan baan kugu leeyahay in muslim haddii aad tahay oo aayaadka qur'aanka kariimka aad aaminsan tahay waxaan malaynayaa inayna marnaba shaki ay kaaga joogin ummaddii waxay yidhaahdaan in nabiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisa caam ay tahay lilyahuud waannasaara maa huwa macluumu min addiini bidaruura bal marka u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin bal aayaddaas u fiirso oo suuratu aali cimraan ku jirto ilaahay wuxuu leeyahy waman yabtagi ninkii doono gayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan ninkii diin ka raadiyo falan yuqbala minhu laga aqbali maayo wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin asiga ninkaasna aakhira markii la gaaro waa khasaaraya aayaddaas waxay ku caddaynaysaa waxaan islaamka aanan ahayn diin laga dhiga kari maayo ninkii ka dhigtane wuxuu u dambaynaa khasaare iyo naaru jahannama u dambaynaya marka adiga nin muslim haddii aad tahay imaa inaad aayaddaas beenisid oo aad tidhaahdid diimaha way badan yihiin islaamka keligiisna maha inaad tidhahdo aayadda aad beenisid oo sidaas aad gaal ku noqotid annaga waxaanu ognahay ay culammadii islaamka o dhan ku ijmaaceen ninkii diinta islaamkaa hal xaraf oo qur'aanka ka mid e beeniyo ama shay macluum min addiini bidaruura beeniyo inuu gaalnimadiisa aan khilaaf ka joogin markii ninkii yidhaahdo aayaddaas waxay sheegayin ma jirto diimankana islaamka keligiis kuma koobno ee adyaanta way badan tahay yahuuda ka mide kiristaana ka mide buudiyaa ka mide hunduusa ka mide islaamka ka mide haddii aad tidhahdid macnaheedu waxa weeyaan inaad aayaddaas qur'aanka aad diiday ee marka saasna adigana aad gaal ku noqotay qoladaas aad la meel noqotay weeyaan waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin diinta waxaa aqbala ama diida waa ilaahay ilaahayna wuxuu noo sheegay diintaas islaamka waxaanan ahayn aniga aqbali maayo buu yidhi marka sidaa daraaddeed haddii aad tidhahd maanta diin kalaa jiro macnaheedu waxay tahay qof jaahil inaad tahay oo hadda aan kuu caddaynayna arrintaas sax inayn ahayn iyo qof wax og inaad tahay ee markaa ogaalna islaamka ugu baxay inaad tahay labadaas mid weeyaan marka annaga dhihi mayno ciyaadan billahi annagoo muslimiin ah ee aaminsan inay diinta xaqa islaamka ay tahay maanta dhihi kari mayno mana ku fikiri karno in diin kiristaan la yidhaaha jirto diin yahuud la yidhaaha jirto inaan yidhaahdo ma kari karayn laakiin laba shay waa inaad kala ogaato oo maanta waxa diina markaan kuleeyahay waxa weeyaan waxaan ula jeedaa wixii hore soo jiri jiray waxaan aaminsannahay diinta oo macnaha reer bani israa'iil ama ha ahaata tii muuse lagu soo dejiyey ama tii ciise waktiga ay jireen xaq bay ahayd intaanan la bedelin qoomkooda ayna bedelin oonan kuu sheegi doono xaq bay ahayd laakiin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo saaray wixii diin xaq haystay iyo wixii diintoodii bedelayba intoo dhan waxaa waajib ku noqday inay waxaasoo dhan cala aljambi iska dhigaan inay diin xaq ahayd keli ay rumeeyaan laakiin camalfal iyo diin kale markaa islaamka ay soo wada galaan taas baa waajib ku ahayd taas inay qaataana waajib ku ah marka nuqtadaas waa muhim waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin marka haddii aad doonaysid ilaahay subxaanahu watacaala hadalkiisa inaad maqashid wuxuu noo caddeeyey diinta islaamka waxaan ahayn la aqbali maayo ninkii sidaa ilaahay baan ugu dhowaanaa diintaas islaamka diinan ahaynan ilaahay ugu dhowaana ninka hadduu yidhahdane inay tahay meesha uu dambaynaya khasaare iyo dhimasho iyo maxaan ku ihahdaa naari jahannam inuu galo in ay tahay ogow sidaa daraaddeed ilahi wuxuu leeyahy ina addiina cinda allahi alislaam bal u fiirsa ina addiina waa lafdigaas waa lafdi macrifo ah xasri iyo wuxuu faa'iidaynayaa wax la yihahda qasri diinta waxa weeyaan cinda allahi ilaahay agtiisa diinka ee alislaamu waxa ilaahay agtiisa diin looga yaqaano oo ilaahay wanaag looga mutaysanayo waa diinta islaamka ah wixii ka soo harayna waa baatil macnihi sidaas weeyaan ayib marka nuqdadaas ugu horraysa waxa weeyaan aayaadkii sariixa waxay kuu diidaysaa in aad maanta tirahdid adyaan badan baa jirto walidaalika aad u fahamtid aliftiraaq walittifaaq markaan ka hadlayno
diinta waa badan tahay laakiin waa iskhilaafsan tahay diiniyaasha marka nin kastaba midka uu arkay si inay toosan tahay ha iska galo ilaahayna ha ugu dhowaado dad badanoo haddee diin aan waxba ka aqoonin oo dad jaahiliin ayaa dacwadaas wado ulajeedadana waxay tahay dadka muslimiinta in diinta looga saaro ay diin la-aanna ku dhacdo liannahu qofkii diin haysta haddaad ka saartid ee yahuud iyo kiristaan la nasakhay diintoodii aad tiraa waan galaya waxa weeyaan qof aad meel cidla uga tagtay bay noqonaysaa sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay inuu qofkii uusan mujaamalin naftiisa ninkii toosnimo u gaaloobay ee dhahay aniga gaaladaas dhaqaalay haysataa maanta xukumkii bay gacanta ku haysataa aniga ayadaas nafci ka raadinaa daraaddeed baan diintooda u galaya haddii waa gaalnimo loo bareeray laakiin wax diin intaad iska dhaadhicisid diin baa meeshaas taalla naftaadan been ha u sheegin ummadaadana ha dhagrin ee waxa weeyaan xaqiiqada la ogow ina addiina cinda allahi alislaam inay tahay ayib waxaan kugu sheegayaa sidaas oo kale inan yahuud iyo kiristaan maanta diin aysan ahayn maanta aan joogno ee annaga aan rumaysannahay inay diin xaq ay ahaan jireen laakiin la nasakhay waxaa ka mid ah cumuumu dacwatihi sala allahu alayh wasalam nebiga dacwadiisa ummadoo dhan baa loo soo diray haddii annaga aan saas aaminsannahay macnaheedu waxa weeyaa inaan aamino diin kale inay jirin wa ilaa waxay noqon lahayd haddeen yidhahda nebiga dacwadiisa ummadoo dhan yay caam ku tahay haddana aad leedahay yahuud iyo nasaaraa baa jirto waxaad markaad aaminsan tahay dacwada nebiga caam inaysan ahayn bal u fiirso nebiga waxaa lagu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi bashiiran wanadiira yacni kuma aanan soo dirin nebi maxamedow ilaa dadka dhammaantiis maahine bashiiran adigoo dadka janno ugu bishaaraynaya wanadiir naarna ugu digay marka wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaasi naas aa la yidhi waa macrifo waxaa lagala jeedaa istiqraaqiya weeyaan ashaas ku jirta dadkoo dhan aa la yidhi marka yahuud iyo kiristaanka waktigan joogo iyo hunduuska iyo buudiyiinta lafdu naas ma soo gelayaan mase ma soo gelayaan jawaabtu waxa weeyaan naaskii ay qayb ka yihiin dadkii bay qayb ka yihiin hadday dadkii qayb ka noqdaan waxay qayb ka noqonayaan dacwada nebi moxamed dadka laga rabo in rumeeyaan iyo qayb ka noqonayaan bal u fiirso ilahi wuxuu leey qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica nebi moxamedow waxaad ku tidhaahdaa yaa ayuha annaasu dadka dhammaantiisiyow inii rasuulu llahi ilaykum jamiica aniga rasuulkii ilaahay uu soo diri baan ahay adinkoo dhan baa laidinkii soo diray marka hadday dacwada nebiga ay tahay dacwo caam ahoo dadoo dhan inay rumeeyaan laga rabo waxaa meesha ka baxayso dacwo kale inay jirto wa ilaa waxaa la dhihi lahay nebi moxamedow adiga carabtaad nebi u tahay yahuud iyo kiristaanna waxba kuguma qusayaan baa la dhihi lahay laakiin qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiican markii la yidhi yaa waxaa lagu ogaaday reer bani israa'iil oo dhan biطaa'ifatayhim waman kaana qablahum waman bacdahum in nebi moxamed risaaladiisa markay soo gaartay inay dadoo dhan inay rumeeyaan ay waajib ku tahay ayib bal u fiirso tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuna lilcaalamiina nadiira ilaahay baa isku ammaanay inuu nebi moxamed alayh الsalaatu salaam ku soo dejiyey kitaabkaas iyo asiga oo ah nadiiran lilcaalamiina dadkoo dhan inay u digaan caalamiin ma siwa allahi tacaala yaa lagala jeedaa oo dadka caaqiliinta ahoo jinni iyo insi yaa lagala jeedaa gaar ahaan marka nebi moxamed alayh الsalaatu wasalaam dacwadiisa inay caam tahay waxay keenaysaa inan diin kale inay jirta aan rumaysano taasay keenaysaa nabiga alayh الsalaatu wasalaam hadalkiisa uu noogu caddeeye wuxuu ihi ucطitu khamsa lam yucطahuna axadu min alanbiyaa'i qabli shan baa laysii gaar ahaan nebi aniga iga horeeyana aan hore loo siinin oo aniga ilaahay igu sharfay gooninimo shantii waxaa nebigu uu ka tiri uu ka mid dhigay kaana الnabiyu yubcaثu ilىa qawmii khaasatan wa bucithtu ilى الnaasi caamatan buu nebiga alayh الsalatu wasalaam wuxuu ihi waxaa caaday ahaan jirtay uu ilaahay subxaanaه watacaala rasuul hadduu soo diro dadka asiga ku qabiilka ah dadka asiga ku cunsurtaa buu ilaahay subxaanaه watacaala u soo dari jiray laakiin aniga wuxuu ilaahay igaga duway dadkaas wa bucithtu ilى الnaasi caamatan dadkoo dhan baa laysoo diray buu nebiga alayh الsalatu wasalaam yidhi taas waxaan ka ogaanay in nebiga alayh الsalaatu wasalaam dacwadiisa ay caam tahay dacwadiisa hadday caam tahayna wax allaale wixii dacwo jiro o dhan baa meesha ka baxay sidaa daraaddeeda nabiga xadiidkaas waxa weeyaan oo hore aan kuu sheegay ucطitu khamsan xadiid bukhaariy muslim ay wariyeen weeyaan xadiid kaloo muslim uu wariyey nebigu wuxuu ihi laa yasmacu bi rajulu min hadihi اlumma yahuudiyun aw walaa nasraaniyun ثuma laa yu'minu bi ila dakhala الnaar mar u fiirsa xadiidkaas saxiix muslim buu ku qoran yahay nebigu wuxuu ihi nin imaqla ma jiro rajulun min hadihi اlumma ummadaan asiga ummatu dacwa la yihahda ummada nebi moxamed loo soo diray nin imaqla ma jiro yahuudi iyo nasraani ثuma laa yu'minu bi aniga aan i rumaysanin ilaa dakhala الnaar
marka wuxuu yidhi nin aniga i maqlay oo ani rumaynin ma jiro ilaa hadduu jiro ou dacwadaydi diidane naar baa u dambayso nabiga alayh salatu wasalaam saasuu leeyahay. ayib markaa sidaa daraaddeeda wuxuu leeyahay غayru waaxidin wa kownuhu mabcuuثan ilى الnaasi caamatan mima huwa macluumu min addiini bidaruura nebiga inay dacwadiisa caam ay tahay oo dadoo dhan ay rumeeyaan ay waajib ku tahay waxa weeyaan waxa diinta laga og yahay ayadoon daliil ba aan u baahnayn bay kamid tahay buu leeyahay. marka sidaa daraaddeed yaa waxaad ogaataa dadka dhacay nebiga alayh salatu wasalaam dacwadiisa waa gaar waxa weeyaan waa dad doonaya inay ummadda islaamkeeda dhaawac ay u geystaan. waxaan mithaal ahaan kugu soo qaadanaya nebiga fii xaali xayaatihi kaana yursilu rusulan birasaa'ila mutacadida rasuul buu diri jiray waraaqo uu qori jiray wuxuu u qoray nabiga alayh salaatu wasalaam kisra iyo qaysar iyo najaashi iyo muqawqis iyo wixii lahale dadkaas qaarna waa farisiyiin sida kisra oo kale dadna waxa weeyaan waa dad afaariqa oo sida najaashi oo kale dadna waa dad oo ruumiyiin oo reer oroba yurub ah kulligood nabiga alayh salaatu wasalaam kitaab buu intuu u qoro uu diri jiray wuxuu dhihi jiray diintaan soo gala dacwadayda waa caam adinkana dadka lagula khitaabaad ka mid tihiin. marka haddii nabiga alayh salaatu wasalaam dacwadiisa ay ahaan lahayd mid gaar ah carabta gaar ku ah nebiga ma u diri lahayn dadkaas intuu waraaqa u diro diintiisa asoo ugu yeeraa diinta soo gala ma dhihi lahayn nabiga alayh salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed yaa waxaad ogaanaysaa diinta nebi moxamed alayh salatu wasalaam uu noo keenay inaysan qayb dad gaar aysan lahayn ummad gaar aysan lahayn ee dadkii asiga ahlul ardi oo dhan ay waajib ku tahay inay rumeeyaan ninkii ayna gaarinna inta ummadda oo muslimada ay waajib ku tahay inay gaarsiiyaan. ayib midda kale waxaad ogaataa waxaan yahuud la yidhaahdo inaan wax yar kaaga sheegaan doonaya diinta yahuud liya maxay ku dhisan tahay. diinta yahuud asalkeedii waxa weeyaan waxay ka timid markay ugu horayso waxa weeyaan nabiyullaahi muusa diintii loo soo dejiyey qolada qaadatay ee reer bani israa'iil la dhihi jiray qoladaas yahuudna waa la yidhaahdaa magacooda reer bani israa'iila la yidhahda. qoladaas ayada ah intaan nebi moxamed alayhi salaatu wasalaam la soo saarin diintii nabiyullaahi muusa lagu soo dejiyo tawraadkii ahaa ilaahay kitaabkiisa wuxuu nooga sheegay inay qoladaas ku cayaareen. bal u fiirso haddii xataa diinta nebi moxamed ayna imaan lahayn ka hor baa diintii nabiyullaahi muuse lagu soo dejiyo tawraadkii ahay yaa lagu bedelay oo lagu cayaaray oo lakala hormariyey waxaan jirinna lagu sheegay. taas waxaad ugu deliishanaysaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wa huwa asdaqu alqaa'iliin ilahi wuxuu leeyahay yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicihi yaquuluuna in uutiitum hada fakhuduuh wain lam tu'tahu faxdaruu. ilahay wuxuu ku tilmaamay yahuudda inay yihiin dad ahlu taxriif ah kitaabkii ilaahay uu soo dejiyey ee nebi muuse lagu soo dejiyey ee tawraadka ahaay oo muqadaska ahaay baa waxay sameeyeen qoladii axbaarka ahaay oo culamadoodii ahaay yaa waxay sameeyeen kitaabka intay qabsadeen ee aayaadna ka bixiyeen mid aanay jirin ay ku dareen. sidaa daraaddeed ilahi wuxuu leeyahay fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim ثuma yaquluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi hamanan qaliila fawaylun lahum mima katabat aydihim wawaylun lahum mima yaksibuun. bal u fiirso dadka aan anaga leena yaktubuuna kitaaba waxaa halaag iskale baa laleeyahay qolada kitaabkii ilaahay gacantooda ku qoraya kitaab aan jirnay gacantooda ku qortay ثuma yaquluuna hada min cindi illah waxay qoreen oo ayaga maskaxdooda ay ka qoreen ay leeyihiin hada min cindi illahi ilaahay baa noo soo dejiyey liyashtaruu bihi hamanan qaliila waxay meesha ku qoreenaa waxay tahay dadka culamaau lyahuude dan ayaga ay leeyihiin ummadda inay dhaqaala ka qaataan ayaga ay addoonsadaan aayaad sidaas tusinaysa ayaga iska qorteen waxay ula jeedaan intaasna in ayaga ay ku gaaraan in laga dambeeyo in dhaqaala ay ku helaan. marka ilahi wuxuu leeyahay fawaylun lahum mima katabat aydihim wawaylun lahum mima yaksibuun. dadka ugu waaweyn oo ka mid ah in horta xaqii asiga uu la yimid aan ka qaadan. bal u fiirso markii nebi moxamed alayh salatu wasalaam ha la karaamee ama ha la qadari liiraad waxay ku imaan karto risaaladii ilaahay uu soo dhiiboo laga aqbalo waa oo yidhaahdo aniga rasuul ilaahay baan ahay intaana laysoo dhiibay ilaahu rasuulkuu diintii aad noo keentay waan kaa aqbal haddii la yidhahdo qadarista ugu weyn oo nabiga alayh salatu wasalaam la qadarinayo oo la jecelaanayo taasaa ugu weyn. walidaalika iimaankiiba lama helayo ilaa biliimaani bihi sala allahu alayh wasalam. waad arkaysaa tawxiidkabo in laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulullah labadaas way isku xirayin. haddaad laa ilaha ila allahu tidhaahdi ood muxamedun rasuulullahi aadan ogolayn islaamka soo geli maysa.
marka waxa weeyaan warafacnaa laka dikraka ilaahay markuu leeyahay waxa weeyaan tawxiidkii oo islaamka lagu soo galay uu nabiga calayhi salaatu wasalaam in la qira ay qayb ka tahay waxa weeyaan waa arrin aad weyn waxa weeyaan xuquuqda nabigu uu leeyahay waxaa ka mid ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان سدح منك لك دحله إيمانك معانك سهلا سدح دي وحاكمه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم إلهي رسولك سئنا دوحا كسهرا أكجعشا وحب حقيقي أجعشا وأقيم نبي وحور حديث بخاري مسلم كسبا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين يعني أحد فينا إيمان لغهيل ماي انتو أنا إيجا جعيل كبدا سلو والد كسو جعليها سلو ولد كسو عرور كسو جعليها سيدة ذاتك ودن أجعليها حتى عمر بن الخطاب يا وحماني وحوكير النبي يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا من نفسي نفتي دعون بان كاجعلها لا توحي كلاء ديغان كاجعلها يقول مركاسون عمر وحالوير النبي وحوكير مايا عمر وأرنت أسماء markaasuu ku noqday ay ku halaag mudanayaan waxay gacantooda ku qoreen ay ku halaagsamayaan wixii ay kasbadeen baan lagu cadaabayaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala leeyahay maxaa yeelay kitaab ilaahay aayad laga bixiyo ee waxaan jirin lagu soo daro ciqaabka lagu mudan kara waxa weeye waa gaalnimadana waxay u dambeynaysaa waa naar marka adduunyo yar oo haddii shaqaystaan ay heli kari lahaayeen yaa waxay door bideen inay ilaahay kitaabkiisa ay bedelaan ayagoo u bedelay inay nafci gaar ayaga ay ka helaan ay doonayaan marka liyashtaruu bihi thamanan qaliil adduunyada dhan waa qaliil weeyaan marka lama dhihi karo diin sidaas lagu sameeyey ee intaanba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lasoo dirin bay saas u bedeleen marka waxyaalaha ay dadka ay ku dhaadhici jireen waxay ka mid tahay in yahuudda caqaa'idooda waxay ka mid tahay inay yidhahdaan lan tamassana annaaru ilaa ayaaman macduud waxay leeyihin annaga shacbullahi almukhtaar baana ilaahay waxa weeyaan 40 maalmood keli ah uu naarta nagu cadaabaya dembiga yar aan galnay kadibna waa naga soo saaraya ummadda dhanna waxa weeyaan waa la wada cadaabaya ilahay wuxuu yidhi qul attakhadtum cinda allahi cahdan falan yukhlifa allahu cahdahu am taquluuna cala allahi ma laa taclamuun marka waxaa la yidhi waxa aad sheeganaysaan ballan ilaahay aad la gasheen oo qoraal aad isdhaafsateen maajirood aad haysataan oo dadka u soo bixi kartaan am taquluuna cala allahi ma laa taclamuun ama ilaahay baad ku been abuuranaysiin waxaadan ogeyn bal dad kitaabkiinni uu saas ula hadlaya inan annagoo muslimiin oo waxaas aan dhegaysanayna inan maanta u rumayno inan nidhaahdo diinta yahuud waa diin islaamkana waa diin laakiin adyaantii iskhilaaftay inan nidhaahdo waxa weeyaan wax aad u fool xun waa meesha waxa taalla waa diin iyo baatil meesha waxa yaal waa xaq iyo baatil meesha waxa yaal waa diin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka ilaaliy in la taxriifiyo iyo diin la badbedelay oo dadka siday doonaan ay ka yeeshtaan marka yahuud waxa weeyaan noloshooda o dhan waxay ku xiran tahay waa taxriif kitaabkii ilaahay bay bedeleen nasaara haddaan u nimaado yahuud waa usoo noqon doonaa laakiin nuqtada ay baadinimada ay ka siman yihiin nasaara waxa weeyaan waa ummadda calaa wajhi alardi ugu baadiyaysan weeyaan nasaara ama kiristaanka qolada la yidhahdo liannahu waxaana laga muransanayn kitaabkii nabiyullaahi ciisa lagu soo dejiyey oo injiil ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku magacaabay wixii ku qornayna qayb ilaahay uu nooga sheegay kitaabkeenna kitaabkii injiil ahay waaba la waaysan yahay basiga dhan marka war u fiirso waa annagoo nidhaahda maanta ma dhici kartaa muslimiina nahay kitaabkii ilaahay uu nebi maxamed ku soo dejiyo qur'aankeena waa naga dhumay maxay kula noqon kartaa bal adigoo muslim ee fikir say kula noqon kartaa kiristaanka lagu sheegaa waxa weeyaan kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey